tahriibku waa socdaal sharci darro ah oo qofku kaga baxo dalkiisa si uu u gaaro waddanno kale. Badanaa daayarta Soomaaliyeed ayaa u tahriibta qaaradda Yurub, Maraykanka iyo sidoo kale qaarado kala duwan, iyagoo adeegsanaya waddooyin khatar ku ah naftooda, halka dhalinyartu ka raadiyaan nolol ka wanaagsan tii ay ku sugnaayeen. Waxaana badanaa la sheegaa in ay arrintani sabab u tahay fikir khaldan, shaqo la'aan, saboolnimo, rajabeel iyo sidoo kale sababo kala duwan. halka sidoo kale la tilmaamo in ay balwadda laftirkeedu qayb laxaad leh ka qaadato in ay dhalintu hawaystaan tahriib iyo marin khatar ku ah naftooda. haddaba kulan wacyigelin ah oo uu soo diyaariyey xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee deegaanka Soomaalida ayaa loo qabtay ardayda jaamacadda iyo dhalinyarada qaybahooda kala duwan. kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin heer deegaan ah, aqoon-yahan ka socday jaamacadda Jigjiga ayaa lagu soo bandhigay aafada ay tahriibku leedahay, khatarta maandooriyaha ama mukhaadaraadka. ugu horeyn Professor Nasir Warfa oo ah agaasinka waaxda caafimaadka iyo badqabka maskaxda ee jaamacadda Jigjiga ayaa soo jeediyey warbixin ku saabsan arrimaha la xidhiidha khatarta ay leedahay maandooriyuhu. mar aad yar xanuunsan sida calaamadaha isku arkartid oo aad maaragtay isliid la'aan iyo ku dhacayso waa caadi. marka kama hadlayno wax occasional, kama hadlayno, waxaan ka hadlaynaa everyday experience. every week haddaad aragtid qof sidan ah oo sweating ah, every week qof maaragtay agitated ah oo iska xanaaqaya, marka waxbaa jira. So what are the consequences of drug abuse? So some of the most implications of drug abuse is neglect of work. shaqadii ma tegaysid, waxbarashadii ma tegaysid, bulshadii kama mid noqonaysid. So and you cannot control consumption. Illicit drugs are among the top 10 risk factors for ill health. So both physical and mental health. Drugs they contribute to the mortality rates of the world and in every country. So 10% of all deaths are contributed to drug use. There are also social problems, there are financial problems, and these risks will increase if people don't do something about it. Haddaan wax laga qaban. marka aynu ka hadalno the types of drugs in Kaadleyno. Some of the drugs are stimulants like amphetamines, crystal meth, dexedrine, Ritalin, and some of these are also medications. You have to remember cocaine, narcotics. So these are the most common used in every single country. laakiinse deegaan kasta waxaa laga yaabaa kuwa more specialized inay jiraan. guluuga watiin ka hadlayna xabagta, marijuanada, mushroom ecstasy. marka the two different groups qaarkood waxa weeyaan more deadly because waa tablets, waxani waa kiniiniyo. qaadka hadda markaad cunaysid qaadku waxaad u cunaysaa isagii oo bunch ah, ma ogtahay? So physically how much charge you can chew is limited. But if you're talking about ecstasy ama ketamine, you can take 4 or 5 tablets in one go. That could be the equivalent of the 10 marduf. Yeah? Imagine haddaad 10 marduf aad saacad gudahood cuntid. So that's the effects we're talking about. Now, there might be other drugs that might be in Jigjiga, for example, or in the Somali region that we don't know. Because these people, they're very smart. warshada ayay leeyihiin. week kasta, bil kasta, sanad kasta, drugs cusub ay soo saarayaan. Some of them are chemists. marka alteration bay ku sameynayaan. Ketamine hadda it came into the market in the last 3 years or so. So this is evolving and changing, and that's why it's difficult to control it. dhanka kale waxaa si guud nooga warbixiyey markii uu kulanku soo idlaaday wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Maxamed Mahdi. bismillaahir rahmaanir rahiim. saaka waxaan halkan iskugu nimidnay tababar lagu kobcinayo garaadka aqooneed ee dhalinyarada qaab dhismeedkeeda kala duwan, iyadoo loogu talagalay inuu shirkan ama tababarkan uu yahay mid kor loogu qaadayo wacyiga dhalinyarada ee dhinaca maandooriyaasha iyo tahriibka. sidaad ogtihiin dhalinyarada waxaa dhibaatooyin badan ku haya maandooriyaasha kala duwan iyo tahriibka, isla markaana dhibaatooyin soo noqnoqda ku haya dhalinyarada. marka maadaama xafiisku uu asaasan yahay horumarinta iyo kor u qaadida arrimaha dhalinyarada, wuxuu joogteeyaa tababaro kala duwan oo kor loogu qaadayo wacyiga dhalinyarada ee xilliyo kala duwan.
taasoo sanad walba uu qorsheeyo xafiisku qorshahan tababarkan wuxuu ka mid ahaa qorshayaasha xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ee qaybta ka hortagga maandooriyaasha iyo tahriibka oo dhibaatooyin asaasiya oo waaweyn ku haya dhalinyarada qaybeeda kala duwan waayo dhalinyaradu waxa weeye mustaqbalkii berri waa hogaaminta berri waxay u baahan yihiin in laga dhiso garaadka aqooneed iyaga oo loo diyaarinayo environment ama goob biyo ku habboon inay wax bartaan maskaxdooda la dhiso jirkooda la dhiso isla markaana ay ka qayb qaataan arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada marka si guud tababarkan waa tababar taabanaya arrimahaas isla markaana dhalinyaradu wacyigooda kor u qaadi doona waxaan uga faa'iideysanayaa fursaddan inay dhalinyaradu ay ku baraarugaan khatarta uu leeyahay maandooriyaha iyo tahriibku isla markaana ay bulshada ama qoysas fara badan ay dhalinyaradooda dhibaatooyin badan ay ku keeneen marka waxaan leeyahay inay ka waantoobaan ama ay ka digtoonaadaan halista maandooriyaasha iyo tahriibka tababarkan ujeedadiisu waxay ahayd in wacyiga dhalinyarada kor loogu qaado kaalin muglana laga siiyo iyadoo hogaaminta qaab dhismeedka kala duwan ee dhalinyarada iyo dhalinyarada kala duwan ee bulshada laga soo xulay tababarkan la siinayo khubaro ku xeel dheer arrimaha dhalinyarada isla markaana ka socda jaamacadda University oo lecturer isla markaana daraasaad iyo aqoon durugsan u leh arrimahan dhalinyarada iyo tahriibka iyo maandooriyaasha dhibaatooyinka ay ku hayaan maadaama ay dhalinyaradu mawduuc ballaaran ay yihiin qaybo kala duwan taabanaya qayb ka mid ah qaybihii loogu talagalay in dhalinyarada wacyigooda kor loogu qaado isla markaana qaab dhismeedka kala duwan ee gobolada iyo magaalooyinka iyo degmooyinka ka jira iyagana lagu sii ballaarin doono haddii la yiraahdo oo wacyigooda kor loogu qaadi doono anagoo la kaashanayna bahwadaagta kala duwan inay kaalintooda iyaguna qaataan isla markaana kor loogu qaado wacyiga dhalinyarada loona dhisi lahaa kaalinta ay ku leeyihiin sidoo kale dhalinyarada ka soo qayb gashay kulankan ayaa tilmaamtay in daa'irta deegaanka looga baahan yahay in ay ka waantoobaan tahriibka maandooriyaha iyo mukhaadaraadka qaybihiisa kala duwan maadaama uu dhalinta halis ku yahay naftooda saaka waxaan ka soo qayb galnay tababarkan oo ku saabsan balwadaha iyo tahriibka runtii waa laba topic oo aad u muhiim ah bulshadeennana aad u saameeyay una baahan gelin aan u baahnayn u baahan waa madal ka waaweyn ama digital ha noqon social media ha noqoto in laga dagaalamo ama ha noqoto tababar la badiyo runtii tababarku labadaas u daarana oo bulshadeennina manfac mataqaanay faa'iido fiican u leh tababarkan runtii faa'iido badan buu lahaa waxa ka soo qayb kulankan waxa ka soo qayb galay dhalinyar aad u badan oo waliba u badan dhalinyarta qalinleyda uu ku badan yahay tahriibka iyo balwada xunxun runtiina anagoo afkooda ku hadlaynana aan ognahay inuu saameyn ba'an ku hayo kulley waxyaabo badan oo wanaaga waan ka weelaynay oo ay ku mid tahay qaabkii loogula dagaalami lahaa walow ay jiraan qaabab fududaan lahaa haddii la sameeyo inay bulshadeena anfici lahayd oo iga horeyso madal lagu daweeyaba kii adaptationka la sameeyay balwada xunxun iyo kii mataqaanay daba qabasho mataqaanay wacyigelinta u baahnaaba ayna jirin haddana in la soo badiyo mataqaan madaladan la badiyo waan bogaadinaynaa runtii toobigyo aad u qiimo badan baa madashan runtii dhalinyartii ka soo qayb gashay khataro badan buu ku leeyahay oo ay ka mid yihiin kow qofkan inuu noloshii caadiga ahaydba hayaankii uu ka hadho oo ugu horeyso inuu waxbarashadii ka hadho oo asaasiga ahayd caafimaadiyan inay saamayso mental ahaan inuu saameeyo oo xanuunadii maanka laftirkeeda ay sabab noqdaan waxaa og tahay kumanaan kun oo sanad walba ka hadha dugsiyada iyo hayaanka waxbarashada dadkan waxaa badanaa marka dib loo baadho waxaa effect ku yeesha ama saameyn ku yeesha waa balwada ama ha noqdo marka dambe uu gudbaba inuu qofku tahriibo nolosha intuu ka qana marka xaqiiqan balwadu marka la eego qofka rajabeel bay ku dhigaysaa waayo waxaad arkaysaa tusaale ahaan aniga dadkii la socday baan ka soo qaado dhalinyartii la socday ragga ugu firfircoon laga yaabo uguna aqoonta badnaa uga tirsan markay bilaabeen waxaad arkaysaa isagoo nolosha ka dhacay saqda dhexe inuu ku soo wac laga yaaba laba jeer haddana adigoo kaa joogin inuu ku soo wac ku dhaho waxbaan weydiin waxaan wax yar naf lahayn balwadiina saameynaysa waxa ugu adag waxa weeye uu saameynayo qofkan xishoodka ka tegay qof waxa markaa saameyntaana waxa aad u keenaysan aaminsanahay wacyiga xafadaha oo si loogu talagalayn haddii ardayga laba dhahaba ardayga yaraa wax baranayay uu diray waalidku aabay soo qaad sigaarka aba keen fiican aan ku soo qaado royalka u dirsanayo iyada laftigeeda saameyn bay ku yeelanaysaa
marka taameyn taban baa aad ugu haysaa oo aan bulshadii familiga kala yimaado ardaygu ama noloshii adkaatay oo qolayaan daraagiska ama mataqaana xashada cababa fadhiya markaad wareysato maybe hadii la meel loogu xanaaneeyo la helo inuu ka gaashaaman lahaa marka waan bogaadinayaa tababarkan waan rajaynayaa tababaro badan insha Allah qaybtan xuseeya maadaama maalin iyo xilliga olaba ayna mataqaana lagu soo koobi karin in la badiyo bulshadiina mataqaana xagga aad loogu wacyigeliyo kulankan waa kulan loo baahan yahay in la qabto oo la xoojiyo lana balaariyo waliba aad loogu baahan yahay in loo qabto dhalinyarta ay haysato tahriibka iyo maandooriyaha siiba maandooriyaha tahriibka waxa keenay horta waa maandooriyaha qofka maandooriya markuu barto ku fikiraya inuu tahriibo marka kulankan waxaan ka faa'iidnay wax aad u fara badan waxaan ka faa'iidnay maandooriya horta waxa marka aad qofku balwad barto awana wuxuu ka caqabad ku keenayaa waxbarashadiisii waxbarasho ma wadan karo noloshu ka dhacaya waxbarashadii hadduu xataa qofkan ifan uu qof wax soo barto uu shaqooyin hayay shaqooyinkiisa markuu maanta dhan waxa ku jeedo waxaan uu habeenkiina dhafro waxa laga yaabaa shaqadin laga yariyo ama uu dabeecad una haysanin dadkan oo maandooriyahan iyo kuwa uu jahwareeriyo marka waxaan ku bogaadinayaa dhalinyarta iyo kuwa fikiraya iyo kuwa ku shiraba inay ka waantoomaan oo baashaas ka fogaadaan dawladdan waxaan ku angarinaa meelaha iyo xumooyinka deegaanka dhex jira ama meelaha ay ku badan yihiin in diiradda la saaro oo dhalinyartana hoos la eego kulankani faa'iido aad u badan buu leeyahay ka aqoon ahaan iyo ka bulsho ahaanba bulshada waxa loo baahan yahay in wacyigooda la dhiso wacyiga markii la dhisayna cilmi kama maarmo haddaanad cilmi wadanin wacyi bulsho ma dhisi karaysid bulshada inta u badan waa dad diin iyo cilmi isku wata diintu waxayna faraysaa in cibaado suuban iyo camal suuban lala imaado wacyiguna wuxuuna farayaa in aqoontii iyo buuggii iyo qalinkii wax lagu baadho waxna lagu eego waxna lagu taxqiiqiyo si horumar waara loo gaadho marka waxaan ka faa'iidnay waxa weeye haddii aad walaalkaa wax tari karto aqoon wax ku tar wax bar wax u sheeg waanada si uu beritoole uga digtoonaado horeyna wax uga qaato in wacyiga la joogteeyo fursado shaqo abuur ahna dhalinyarta loo sameeyo sidoo kalena tababaro xirfado iyo mashaariic ganacsi oo ballaaran lagu maalgeliyo si ay da'yartu uga faa'iidaystaan